بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآية. أحبتي في الله، أولا إلهي سبحانه وتعالى أيان مهد علينا nagu kulmiyey boqo ka mid ah boqooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa loo kala gacal badan yahay oo ah Ilaahay beedkiisa subhanahu wa ta'ala, ayadoo cawadan ay ku aadan tahay saan dhamaanteen wada ognahay leeyladii qiimaha badneed nabigeena calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey laylatul isra wal mi'raj. ليلة الإسراء والمعراج ساد كدهان كرتان آيدي أن كفر فرطي وليلة نبينا الدلمي عليه الصلاة والسلام حرم المكي لقى الدلمي إلى مسجد الأقصى كدمنا هل كان نبي أوقب الله عليه الصلاة والسلام العروج، وهل كان نبي لقى كوري عليه الصلاة والسلام إلا فوق 7 سماوات، todobada samood iyo kasii korab nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaa nabiga uu ka gaaro oo uu kala kulmo Rabbul Izza subhanahu wa ta'ala. leyladaas waxa damcaaw hadda saacadan aan joogno meesha lagu soo koobi karo waxyaalihii dhaxdhacay leyladaas iyo ma aragtay waxyaalihii nabigeena uu la kulmay calayhi salaatu wasalaam waxa halkan ku soo koobi karna ma ahan. maxaa yeelay caawalan dhikri baan u taagneen dhamaantiin wada daalanahay, laakiin xogaaga oo buraarujin maartay ayaan ka rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo. leyladaas waa leylo aad iyo aad u qiimo badan, waa leylo ka suntan leylooyinka kale, waa leylo aad iyo aad u qiimo badan xaq islaamka marka loo fiiriyo. maxaa yeelay waxyaalo badan ayaa leyladaas dhaxdhacay oo ugu weyn tahay annaga ummadda islaamka hadaan nahay. waa habeenkii nagu soo faryeelay salaadahan shanta ah oo aan tukun doono ilaa qiyaam saaca. habeenin lagu soo faryeelay waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam Ilaahay wuxuu ku soo faryeelay 50 salaadood. nabiga Muusa la soo maray asagaas ayaa ma artay ka dalbaday inuu rabbigiisa u laabto oo adoomihiisa 50 salaad ma awoodi karaan uu ka soo takhfiifiyo. sidaas liajli nabiga Muusa dartii ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu soo takhfiifiyay oo 50 salaadood oo u dhigmo 50 salaadood Ilaahay nooga yeelay subhanahu wa ta'ala. waa leyla kamid ah shacaa'irta islaamka. Ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waman yu'adim sha'aa'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. leylooyinka oo shacaa'irta ah aad bay u farabadan yihiin. mawludka nabiga kamid ah calayhi salaatu wasalaam, ciideynka kamid ah, leyladan Isra wal Mi'raj ayadana way kamid tahay way. marka hadii dhamaanteen culamaad tihiin waad ka wada dheregsantiin qisadaas waxyaalihii gudaheeda dhaxdhacay isrihi iyo mi'raajka inta labadiisa qaybood. marka insha Allah ta'ala habeenkaas aan joognaa waa habeen aad u baraka badan. waxay hadana dhaxdhacday bil ma aragtay aad u ma aragtay baraka badan oo ashhurul hurum kamid ah bisha Rajab. bishaas dhaxdhacday bishi oo fadli badan ayada fadlayl gooni ku soo aroortay oo hadana leyladaas weyniga badan oo qiimaha badan ay dhaxdhacday. waxa waaye waa leylo aad iyo aad u qiimo badan anaga xageena. marka waxa la rabaa inaan weyneyno oo tacdiimno oo cibaadada iyo khayrka aan ku dadaalno inta bal bisha nooga dhimo insha Allah ta'ala. bishii Ramadaanna waan ugu soo dhowdahay, waxaan laga xigtay bishii Shacbaan ayadana insha Allah aan istiidaad u sii sameeyno u sii diyaar garowno. marka intaas ayaan ku soo gabagabeynaa ahbaabtii caawa xadaradan qiimaha badan qaadiyaasha iyo daakiriinta iyo shaamiriinta dhamaan aad bay u mahadsanyihiin. khayr ba Allah ka jazeeyo iyo ahbaabtii soo qalqaalisay
oo hawshan ka soo shaqeysay khayr ma Allah ka jazeeyo saa meesha uu kulmadan waadi raxma Allah nagu kulmiyo insha Allah ta'ala maxabada xabiibkana Allah na siiyo mutaabacadiisana Allah na siiyo mutaabacada nabiga Allah na siiyo ilaahi idinkiis nabiga xawlkiisa Allah naga waraabiyo maalinta dhimanana ku xabiibka xisbigiisa kamid noqdo Allah naga yeelo taasoo ku soo gabeeyna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh